عنيد القدم أدوم كاتشيو لبراد. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا المركز دافع عالم كجوكتان أدبان دي سلامنا برنامجكم أنت برنامج دوران السوق بنشنا وكدوين هي waxaa garabkayga fadhiya ama barnaamijka maanta martinooga ah Mubarak Daahir oo badan ama soo ururiya heesii hore qaraamiga ahaa hees walba xogtii ay ku tilmaamay qisadeeda Mubarak si toos ayaan ugu soo dhaweynaya wiskiin baraya asxaabay marka barnaamijkan taxanuun inoo noqonaya part 1 part 2 part 3 saasina wadana leentaynu magaran saanu soo afmeeri doona insha Allah Mubarak soo dhaw aad baad mahadsantahay jaamacile magacaygu waa Mubarak Daahir warna waa sidaas sheegtay kulliyeyn lagama go'yan karo suugaantu waa bad laakiin hadana in badan oo la oran karo waa xog saxan ama hubsoon waan ka haynaa intii karaankayaga marka maanta inkastoo aan diyaar badan lahayn hadana maanta mid baynu hordhac ka dhiganaa hadda taasina ku galgalayno sidee noqoto heestan waxa la dhahaa Google maxaa Google kaaga xidhan dadku sabab sida u yaqaanaan ama waxa la dhahaa dardaaranka wad gaftay heestan midhaheeda wax iska leeyahay dhaho Maxamuud Firin oo oday gabyaaya wax jooga gudihiisa waxa ku noolaa deegaanka dawladda deegaanka gaar ahaan Jigjiga dadka badankood ma yaqaanaan wuxuu badan yahay odaygan heesaan ma badan wuxuu badan yahay gabayada laakiin tan heestan sameeyay ma ku kaliftay iska musameyn dadka heesaan iska sameeyana ma aha marka heestan waxa ku luqayaa naxariistay codkeedii iyo naxiyadeeda waxa lahaa Axmed Yaasin Digfeer ilaahay naxariisto marka bal hadda waxaan ka taataabanaa intii ilaahay naga garasiyo ninka odayga la dhaho Maxamuud Firin baa soo gurigiisa ka jooga baa xogtii mislaantii saddexdii dabadeeto guriga la joogtay xanuustay guriga inanteeda ku haysay guriga dadna hadii jeer dumarku waxay iska sulugaan waxaan ninkooga mid dumarka hadii jeer ogin gabadhanu waxba yara salugtay intii hooyadeed guriga joogtay lagu hayay lagu baxnaanayay wax badan salugtay dadna muddo lagu hayay wala shaafiyay dhakhtarka la geeyay ninkan diinta karankiisa haysan uu geystay adigu dabadeeto markii saanta la naatay ba la baytii wantagaya xaafadii gurigii carruurta baan ka wardoonayay dabadeeto inta waad ka hadmaayay waan sii raacay saantii hooyada maadaama ay xanuunsanayso waan ka xaynaya hooyada baan ka xaynaya iskiis joogna guriga gabadhii way ka xaysay hooyadeed gurigeedii bay tagtay magaalada la dhaho qorxay agteeda dadna gabadhii nag soo noqon weyday soo noqon weyday gabadhan ay waxba tirsanaysaa gabadh bay hadintii wax salugtay ee guriga joogtay dabadeeto oday ninkii uu yaabay marka dee telefoonada iyo dee lambaro iyo gawaadhi markii fudud iyo dee la garaacay ma jirin odaygu uu yaabay markaas badin weyn buu hayay uu dareemayay meeshii wax jiraan waa sugay guriga uu joogay heesana ka waran doonta guriga wuxuu ka dhaqabanayay cidlada uu dareemayo meeshii cidlada ah ninka bartay guriga buuxa meel cidla inaan joog karin adigu dabadeed wuxuu cidladii fadhiya markaa waxa joogtay adigu laba qof midna way ka haystay midna waa la joogay carruur ay lahayd dadna ninkii wuxuu noqday inuu hadii jeer ninkii abwaanka ama fanaanka odayaal lama ka haysto garra ma galo cid ma ka haysto afkiisa ku cilba xayawaan inta afkiisa ay xudiyay dadna uu fakiray inuu baa ka dhaway uu fakiray wuxuu yiri diiman haddana adig wax ka tagin laakiin wax hoose jirto aan ogeyn inaan ku sheegin war hadda adigu si kale ugu dhig dadna heestaasu tiriyay la yiraahdo heesta dhahoyaan garbaan ku dhiganaya marka heestana halkan waynu ka heli doonaa kulli in dhaxtaala heestu waxay ka bilaabmaysaa أدوك عنيد القدم أدوك أجيو لبراد أنا أقولك وشرحي بس نكون كلنا تقبلني يا شراب شرحي بس يمكن كل يوم
gobonimo iyo sharaf adigoodkaaga suray dadkii kala gada qarsada waxbaa ka dhex guuxaye garban kuu dhiganayo guddoonkuna waa adiga garax lama raadiye ninkii odaygii dhalay gabadha baa yidhi gabadh ninkan cidlada kasoo qaylinayaad guriga cidlada kaga timi orda ka noqo ka wardoo ninka iyo carruurtiisi gurigaaga ku noqo ninkan qaylinaya naga aamusiyo marka heestii ninkii wuxuu noqday in afkiisa ku ciilbaxay oo heestii waxay sababtay inuu guriga dhismooyo dib usoo noqoto gabadhii heesta ilaa maanta ilaa iyo xilligan dee aynu dhegeysanayno weeyaan marka heest waxay noqotay heestii gurigii iyo reerkii dib usoo celisa ninkaasina halkii waxaan aaminsanaya inuu halkii ugu habbooneed ka hadlay marka dee ma jirto haddaad heesaha ugu fiirsata ma jirto hees maanta iska tiriyey ama abwaan tiriyey ama iska hees waliba macna ku fadhi waa run si hore wax marka waaqac taagan ama marka marxalada taagan maaragtay waa run si dhab ugu warrami jireen heesaha dabin ka raab baa la dhahaa iyagu dee waa iska sheeko ma fahmanay kuwaas heesa ma oran karnaa maarigow markaa heeso badan baad qisooyinkaadaad haysaad ururisay markaa sidee baa la oran karaa sida ugu fududay aad u ururisay heesaha amaad ku wada xogtooda u heshay sidee bay noqon kartaa jaac waa mahadsan tahay inuu taas iska simbal waa fududahay inaad wixii haddaad kolley aad markaad adigu hamad u hayso aad leedahay dee wixii aad aragto waxaan inaad wax xiiseynaysa yihiin marka ugu horeysa fahmaysa siday kugu bilaabantay laakiin marka hore xoogaad helaysaa dhowr 3 2 4 baad helaysaa waxaa kasta wixii kula talax tago adigu raadinayaan baad arkaysaa taad dhegeysto waxay noqonaysaa inaad noqoto tan maxay kusoo baxday maxay ku timi iyo sameeyay heesta hadda jirta fanaanka loo nisbeeyay laakiin fanaanku heesta ma leh suu canjiradu waa la dhegeystaa laakiin ninka abwaanka ninka la xaqsaa heesta leh labadaas baa heesta ka dhaxaysa markii ugu horeysay mid iyo laba bay soo duulay noqotay waliba inaan mar haddaan qofkii inaad raadiso xaqiiqadii ka baaris badan inaad raadiyo heestiyo dhowr qof kala duwan marba qof si ku sheegay marka dambe sida saxda ah helaysaa dad raadiso hawlahi dii kuwan hayaa waa badan adigu boqolaal kor bay u dhaafeen waliba qaranku wixii 91 adigu baa ugu dambeeyay 1958 61 adigu xillidaas u badan yihiin 80 70 91 baan u dambeeya adigu dhowr boqol gaarayaan heesahan hayaan ayaqooyinkooda haddii insha Allah weyn xajacantay ummaduna inay wax badan kala socdaan wax badan ka ogaadaan dadku heesaha way dhageystaan laakiin inay xigmadeeda iyo macnaheedina ogaadaan heestu waxay ku timi taana waa laga maarmaan aad baa mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa maarig daahir oo qisooyin inooga warramay heestan digfaar qisadii ay ku timi heestana dhextaal baan uga dhigi doonaa barnaamijkan soo gelin doonaa markaa wuxuu inoo sheegay inuu qisooyin fara badan hayo dad badan baa jiro heesaha iska dhegeysta laakiin aan fahamsanayn macnihii ay heesahana ku yimaadeen heesaha iyo heeso badan waanu soo gudbin doonaa insha Allah la socod wanaagsan maarig maxaad kaga tegaysaa asxaabta inta waanu salaameynaa asxaabta waxaanu kaga tegaynaa wanaag baanu kaga tegaynaa marka insha Allah waynu waa socon doonaa Yol TV waynu ka wada socon doonaa halkan waxaan helo ka soo helnaa iyo beeshkayga maarig labadaa waa ka wada socon doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka halka TV-ga nagala socon doonta asxaabta iyo wixii ku xiran iyo bulshada salaad baan salaameynaa weliba gacaloy ku jecel adoon ku maqnay waxdara inuu gurigo xilaa sidaan shirif fadhiyo anuu guri ku sharaxay kasinkuna ku dhaxay